السلام عليكم سودو libaax libaaxad maanta waxaan doonayaa inaan kuu sharxo filim lagu magacaabo The Pilot. dhacdada filimku waxay ku bilaabanaysaa bartamaha sanadkii 1941 khaasatan magaalada Moscow xilli uu socday dagaalkii labaad ee adduunka oo ay fooda isku hayeen xukuumadda Ruushka iyo Jarmalka. isla xilligaana Moscow waxay ahayd aaga iyo xarunta ugu muhiimsan ee ay bartilmaameedsanayeen ciidamada Jarmalka. intaa kadib markaan waxaan aragnaa pilot Ruushiyaan oo lagu magacaabo Nikolai isagoo waliba ku jira markaan howlgal duqeyna oo bartilmaameedsanaya ciidamo Jarmal ah kuwaasi oo saaran dabaabado. isla waqtigii uu soo dhameeyana waxa uu ku soo laabanayaa xaruntiisii Moscow. waqti kadib isagoo socda bartamaha magaalada Moscow markaan waxa uu milicsanayaa laba tuug oo doonaya inay dhacaan habeenay. isla markiiba Nikolai waxa uu isku dayayaa inuu caawiyo oo uu ka dhiciyo tuugada, laakiin waxay isla daqiiqadaaba ka cararayaan goobta iyagoo ka qaadanaya lacagtii. Nikolai isla markiiba waxa uu isku dayayaa inuu ka soo dhiciyo oo ceyrsado, nasiib xumo si ma awoodiyo oo ma gaariyo. intaa kadibna waxa uu soo dhaqanayaa gabadhii si uu niyada ugu dajiyo, laakiin iyadoo la hadlin way isaga tagaysaa. waqti kadib markaan waxaan aragnaa Nikolai oo ku jira howlgal isaga iyo laba dooliye kale oo dhex muuqanaya hawada sare iyagoo raba inay duqeeyaan gawaari iyo dabaabado ay wateen kolonyo ciidamada Jarmalka ah. Nikolai oo hogaaminayay labadii kale waxay duqeynayaan oo ay dhulka la simayaan qaar ka mid ah gawaaridii ciidamada Jarmalka, laakiin ciidamadu iyaguna waxay bilaabayaan markooda inay iska caawiyaan oo ay isku dayeen inay soo ridaan diyaaradihii Nikolai iyo labadiisa saaxiib. ilaa ugu dambeyn ay ku guuleysteen inay dhulka dhigaan labadii diyaaradood ee la socday Nikolai, halka tiisuna ay gashay khatar halis ah maadaama ay ka badbaaday dhowr isku day. Nikolai iyo caawiyihiisa oo wada saaran diyaaradooda waxay dareemayaan inay ku jiraan khatar maadaama diyaaradooda dhinacay wax ka soo gaareen. isla waqtigaana Nikolai si geesinimo leh waxa uu isugu dayayaa inuu ku sii jiro hawada oo uu ka badbaado ciidamada Jarmalka, ilaa markii dambe diyaaraddu soo gaaray dhaawac iyaguna ay ku soo dhacaan meel u dhow meeshii ay joogeen ciidamada Jarmalka. intaa kadib iyagoon wax gaarin waxay ka soo degayaan diyaaradda, balse waxay milicsanayaan in diyaaraddu aan lahayn wax rajo ah inay dib u kacdo. sidaa darteedna caawiyihii Nikolai oo lagu magacaabo Shooter waxa uu sheegayaa in diyaaradda ay dab qabasiyaan si aysan u qabsan ciidamada Jarmalka, laakiin Nikolai caawiyihiisu waxa uu tilmaamayaa in iyaga ay khatar galayaan haddii ay diyaaradda dab ku shigaan maadaama ciidamada Jarmalku ay si fudud ku ogaanayaan goobta ay joogaan. balse nasiib xumo iyagoon bartiiba ka dhaqaaqin waxa uu imaanayaa ciidamadii Jarmalka. caawiyihii Nikolai isla markiiba waxa uu dib u xasuusanayaa in hubkii saarnaa diyaaradda uu weli ku jiro rasaas. waxa uu ku furayaa ciidamadii Jarmalka, halka Nikolai isaguna uu isku difaacayo biskooladiisa khaaska ah oo uu sitay ilaa ay dilaan qayb ka mid ah ciidankii Jarmalka, balse iyaguna ay ka dhamaato rasaastii. caawiyihii Nikolai waxa uu isku dayayaa inuu qarxiyo diyaaradda si ay u helaan fursad ay ku cararaan, laakiin ciidamada Jarmalku iyaguna waxay bilaabayaan inay ku soo ridaan madaafiic aad u daran iyagoo rabay in labadooduba ay ku dhex dilaan gudaha diyaaradda. laakiin Nikolai iyo saaxiibkiisu waxay bilaabayaan inay ordaan oo ay ka faa'iideystaan fursadda. intii ay sii ordiyeen Nikolai waxaa lugta ka soo gaaraya dhaawac ilaa uu socon waayo oo uu mirdawoolmo, balse saaxiibkiisu waxa uu ku qaadayaa dhabarka si uu u badbaadiyo ilaa ugu dambeyn ay yimaadaan goob biyo mareena oo ka yara fog meeshii ay joogeen ciidamada Jarmalka. laakiin xoogaa yar kadib waxay maqlayaan jabaqda iyo rasaasta ciidamadii Jarmalka oo ku soo dhow dhinacooda. Shooter isla markiiba waxa uu saaxiibkiisa saarayaa baraf isku dhagan isagoo ku sii daynaya biyo mareenka si uu u tago dhinaca kale uguna badbaado ciidamadii, halka isaguna uu soo qaadanayo biskooladii Nikolai si uu isugu difaaco oo uu ku dilo askarigii u soo dhawaada dhinaciisa. waxyar kadib Nikolai isla markii uu gaaro dhinaca kale waxa uu kala furayaa indhaha, wuxuu is arkayaa isagoo saaran jab baraf ah lugtiisana uu ku yaalo dhaawac daran. waxa uu bilaabayaa inuu u qeeliyo saaxiibkii, laakiin nasiib xumo waxa uu arkayaa kaliya ciidamadii Jarmalka oo taagan dhinacii kale ee biyo mareenka. isla markiina waxay ku bilaabayaan rasaas, halka isagoo dhaawacna uu isku dayayo inuu badbaadsado naftiisa oo uu ka cararo goobtii. isla xilligaa markii uu ka fogaado ciidamadii waxay go'aansanayaan in taliyahooda ay u sheegaan in pilot Ruushiyaan uu joogo dhinacooda, halka isaguna uu istaagayo goob kayn ah maadaama uu ka socon waayay dhaawaca ku yaalay lugtiisa. intaa kadib waxa uu la soo baxayaa qariirad si uu u ogaado goobta uu joogo. habeenkii markii uu soo dhashay waxa uu shidanayaa dab si uu isugu kululeeyo dharkana uu qabowga uga dilo. waxyar kadibna waxa uu dib u milicsanayaa xasuusihiisii hore iyo markii uu ku sugnaa saldhigiisii oo uu la kulmayay gabadhii uu ka dhicinaya labadii tuug. intaa kadib subaxii xigay markuu waagu dilaaco waxaan aragnaa Nikolai oo weli ku jiro kaymaha, laakiin markaan isagoo isdhiirinaya waxa uu soo qaadanayaa ul kadibna waxa uu bilaabayaa socodkiisii isagoo uun doonayaa kaliya inuu helo waxa uu quuto. in muddaha uu dhex wareegayay bartamaha kaymaha markaan waxaa la gaarayaa habeenkii waxa uu shidanayaa dab si uusan u qabanin qabowga daran. isla xilligaa isagoo raba inuu seexdo waxa uu maqlayaa dhawaaqa jabaq ku soo socota dhinaciisa. isla markii uu soo istaagana waxa uu ogaanayaa inuu yahay yey doonayay inuu cuno. Nikolai isla markiiba waxa uu bilaabayaa inuu iska difaaco si uusan dhaawac kale ugu geysan, laakiin nasiib xumase waxa uu arkayaa yey kale oo aad u tiro badan. waxa uu ogaanayaa inuu dhexda ugu jiro kayn yey ah. isla markiiba waxa uu la soo baxayaa biskoolad isagoo ku dhufanaya mid ka mid ah si kuwa kale ay ugu cararaan dhawaaqa xabadda. intaa kadib
subxii xiga waxaan aragnaa Nikolai oo weli ku xayiran bartamaha keynta, laakiin markaan waxa uu imaanayaa goob bannaan ah oo aad uga yara baxsan keymihii hore. balse lama filaan mar kale waxaa soo weeraraya yeydii, halka isaguna uu ku dhex cararaya keymaha dhexdooda ilaa ugu dambeyn uu is arko inuu kusoo dhacay aagii ciidamada Jarmalka, halka hareerihiisa kalena ay ka joogaanba yeydii. isla daqiiqadan waxaa goobta ka bilaabanaya dagaalkii ciidamada Ruushka iyo Jarmalka. yeydii markii ay maqlaan barasaasta waxay ka cararayaan goobta, isla waqtigaana mid kamid ah ciidamada Jarmalka oo kasoo cararay dagaalka isaguna waxa uu kusoo dhacayaa aagii uu ku jiray Nikolai. isla markii uu arkaba waxa uu ku dhufanayaa xabad intuusan qaylinin. intaa kadibna waxa uu isaga laabanayaa mar kale duurka. waqti kadib markii uu istaago dagaalka, ciidamadii Jarmalka waxay soo aruursanayaan ciidamadii looga dilay dagaalka. bise hogaamiyahoodii markii uu si fiican u eego meydadkooda waxa uu ogaanayaa in mid kamid ah lagu dilay biskoolad oo aysanba ku dhicin xabadaha dagaalka. wuxuuna ogaanayaa askarigii Ruushka in weli uu ku nool yahay keynta. waxa uu ciidamadiisa ku amrayaa in mar kale ay baaraan keynta oo ay u keenaan askarigii Ruushka. ama Nikolai isaguna markaan waxaa ka muuqato tabardaro aad u daran maadaama ay isugu darsameen qabow iyo cunto la'aan. waana maalinkii 10aad uu ku dhex jiro bartamaha keynta. intaa kadib waxa uu go'aansanayaa inuu dhex wareego keynta si markaan uu helo cunto. isla waqtiga waxa uu imaanayaa mar kale biyo mareenkii. waxa uu ka dhex helayaa malaay yar, isagoon meel kala dayin waxa uu ku cunayaa sidiisa maadaama ay ka dambadatay baahida, isagoona markaan dib u milicsanaya xasuusihiisii hore mar uu la joogay saaxiibtiisa. balse lama filaan mar saddexaad waxaa haddana soo weeraraya yeydii. Nikolai waxa uu bilaabayaa inuu iska difaaco, laakiin toogta nasiib xumo waxa uu ku dhacayaa god, halka yeyduna ay soo buuxsamayaan saqafka sare ee godka. Nikolai isla markiiba waxa uu isku dayayaa inuu shito dab, laakiin godka oo yar dartii iyo duufaanta kusoo dhacaysay Nikolai waxaa dib u galaysa hawadii, taasi oo keentay inuu ku dhex mirdo walmo godka. intaa kadib markii uu soo tooso isla markiiba waxa uu arkayaa yey kusoo dhacaya dhinaciisa. waxa uu qaadanayaa alwaax yaalay dhinaciisa isagoo caloosha ku duray yeydii. intaa kadib mar kale waxa uu ku mirdo walmayaa gudaha godka. markii uu soo tooso wuxuu is arkayaa isagoo saaran gaari faras ah oo uu leeyahay oday Ruushiyaan ah balse degan meel u dhow aaga ciidamada Jarmalka. waxa uu Nikolai u sheegayaa inuu doonayay inuu caawiyo balse uusan sameynin wax dhaqdhaqaaq ah inta uu saaran yahay gaariga. wax yar kadibna markii uu usoo dhawaado meeshii uu deganaa waxa uu soo baxaya laba kamid ah ciidamadii Jarmalka iyagoo weydiinaya waxa uu ku sido gaariga, laakiin odaygii waxa uu tusayaa mindi isagoo u sheegayay inuu kusoo ogaartay yey. intaa kadib iyagoon wax war ah dhihin way sii daynayaan. daqiiqada kadibna markii uu soo galay gudaha guriga waxay Nikolai geynayaan cooshad yar oo ku taala meel hoose oo aan la arkaynin. Nikolai isla markiiba waxa uu meesha ku arkayaa laba nin oo Ruushiyaan ah oo odaygu soo badbaadiyay, labadoodana mid kamid ah uu yahay dhakhtar. isla markiina waxa uu bilaabayaa inuu daaweeyo Nikolai, laakiin sikama kadib waxaa guriga imaanaya ciidamadii Jarmalka oo la socday markaan hogaamiyahooda. waxa uu weydiinayaa waxa ay gudaha ku hayaan, laakiin odaygii oo markii horeba fiijigan waxa uu sheegayaa inuu yahay sidiisa caadiga ah. laakiin hogaamiyihii waxa uu milicsanayaa odayga gabadhiisa oo biyo u sii sida gudaha. isla markiiba waxaa galaya tuhun daran. isla waqtigaana Nikolai oo laga daaweynaya dhaawici waxa uu bilaabayaa inuu qayliyo xanuunka dartiis, laakiin dhakhtarka waxa uu gacanta ka saarayaa afkiisa si aan loo maqal qayladiisa. hogaamiyihii mar kale haddana waxa uu odayga weydiinayaa dhaqaaqa ka jira meel agtiisa ah. odayga waxa uu u tilmaamayaa inuu yahay jiir, laakiin hogaamiyihii oo weli ku jiro shaki waxa uu ku ridayaa rasaas si uu u xaqiiqsado waxa meesha ku jira. intaa kadib markii uu ku waayo wax dhaqdhaqaaq ah wuu isaga tagayaa. wax yar kadib markii uu sii dhaqaaqo waxa uu dareemayaa shaqar kale isagoo markiiba kusoo noqonaya gurigii odayga, wuxuuna si toos u soo aadayaa cooshadii, laakiin waa goor ay dhakhtarkii iyo Nigba ka baxeen qaybta dambe ee guriga. intaa kadib hogaamiyihii markaan haddana waxa uu milicsanayaa raadadkooda. waxa uu bilaabayaa inuu qoyska oo idil u weydiiyo waxa ay sameynayeen, laakiin odaygu waxa uu isku dayayaa inuu qariyo. isla markiiba hogaamiyihii oo aan ficil kala samayn waxa uu dab qabasiinayaa gurigii odayga. intaa kadib isaga iyo laba kalena waxa ay soo aadayaan keynta si ay usoo qabtaan Nikolai iyo labadii la socday. nasiib wanaag waxa ay ka milicsanayaan meel aad uga fog, balse waxaa haddana ka qarinaysa duufaan daran oo ka socotay bartamaha keynta, waxayna taasi fursad u noqotay Nig labadiisa saaxiib inay ka badbaadaan oo ay ka baxsadaan. hogaamiyihii oo aan weli ka harin waxa uu soo aadayaa dhinacooda ilaa uu dul yimaado Nig oo dhulka jiifa, halka saaxiibadii kalena ay ka kala carareen. daqiiqada kadib hogaamiyihii markii uu kala yimaado Nikolai waxa uu kala furayaa indhaha, mise wuxuu hogaamiyihii ku dilayaa isla qorigiisa, halka labadii la socotay mid kamid ah uu ku doodayay inay u dhiibaan ciidamada Jarmalka maadaama uu dilay hogaamiyahooda, laakiin dhakhtarkii uu ka diidayaa ilaa ay isku dagaalaan. daqiiqada kadibna labadii la socotay hogaamiyaha isla markiiba waxa ay qabanayaan askariga Ruushyaanka ee la murmaya dhakhtarka. waxa uu isla markiiba qarinayaa in isaga uusan dilin hogaamiyahooda, taa beddelkeedana uu Nikolai yahay shakhsiga dilay. nasiib xumo si ma aaminayaan hadalkiisa, ugu dambeynna waxay ku dhufanayaan xabadda. dhanka kale dhakhtarkii Nikolai oo ay tabartu ka idlaatay waxa ay soo gaarayaan saldhigga ciidamada Ruushka, laakiin isla markiiba iyaga oo doonayay inay gudaha u dhacaan waxa dhakhtarkii ku dhacaysa xabad, taasi oo sababtay inay nafta ka hamaansato, halka Nikolai uu soo galayo saldhiggii. ugu dambeynna waxaa la geenayaa oo loola cararaya isbitaalkii ciidamada si loo daaweeyo. dhinaca baara kadibna Nikolai waxa uu sheegayaa in labadiisa lugood uusan ku socon doonin mar dambe lagana goyn doono maadaama ay heleen
haleeleen dhaawacyo unugyadana aysan helin wax dhiig ah intii uu ku jiray keynta. Nikolai waxa uu dareemayaa xaalado nafsiyan ah maadaama uusan ku socon karin lugihiisii. In muddo ah kadib markii uu soo tooso markan waxa uu dareemayaa inuusan socon karin oo laga jaray lugihii oo idil, isagoo niyad ahaan aad u hooseeya. waxay dhakhtaradii joogtay meesha u keenaysaa luga macmil ah si uu ugu socdo. intaa kadib wuxuu waqtiga wareegaba waxaa soo dhammaaday dagaalkii. ruushkuna waxa uu helay guusha. intaasi oo dhanna Nikolai waxa uu saaran yahay sariirta isbitaalka maadaama lugihiisii uu waayay. waxa uu dareemayaa murugo maadaama uu aaminsanaa in saaxiibtii ay nici doonto haddii ay dareento in cagihiisii ama lugihiisii uu waayay. isla xilligaana iyaduba waxa ay sugaysay akhbaar ka socotay dhinaciisa maadaama aysan muddo ka warhelin wax war ah, iyadoo waqti walbaba eegaysay sanduuqii bashqadaha bal inay xaggiisa uga timid fariin, iyadoo oo weliba dareemaysay murug. waxayna ismoodsiinaysaaba in xilligan saaxiibkeeda uu geeriyooday. muddo kadib Nikolai waxaa loo xirayaa lugihii macmalka ah oo ay u keentay dhakhtaradii. waxyar kadibna Nikolai waxaa loo sheegayaa inay jirto xaflad loo qabanaya ciidamadii ku dhaawacmay dagaalka, balse lama filaan uu diidaya inuu ka qayb galo. nasiib xumase wuxuusan ogeyn in saaxiibtii ay halkaa ka qaadi doonto hees. isla daqiiqada markii uu furmo xafladii waxa uu maqlayaa codkeedii. isla markiiba waxa uu isku dayayaa inuu socdo, laakiin markii uu dhaqaaqaba waxa uu ku dhacayaa dhulka maadaama ay tahay markii ugu horeysay uu ku socdo lugaha macbalka ah. intaa kadib waxa uu soo istaagayaa daaqada si uu u arko muuqaalkeeda. isla markiiba waxa uu isku dayayaa inuu u qeeliyo, laakiin uma suuragalayso. in cabaara kadib markii ay soo dhammaatay xafladda, Nikolai waxaa galaysa xamaasad hor leh, isagoo oo qaadanaya tababar aad u adag si nafsadiisa uu baro dulqaadka uguna socdo lugaha macbalka ah, iyadoo ay weliba kaalmeynayso dhakhtaradii. muddo kadibna markii uu la qabsado socodka waxa uu sikadiisa bartamaha isbitaalka ku dhex arkayaa saaxiibtiisa, isagoo malaysan karinba waxa uu arkayaa iyadoo u socota gadaal. waxa uu ugu dhawaaqayaa cod dheer isagoo u sheegayay inay tahay xiisihiisii iyo noloshiisa gaarka ah maadaama uu in muddo ah iyada darteed ka fikirayay. isla markiiba waxa ay dib ugu soo noqonaysaa dhinaciisa. filimkuna waxa uu soo dhammaanayaa iyada oo laabta gelinaysa saaxiibkeedii Nikolai, balse markaan ay maqan tahay qayb ka mid a jirkiisa. haddaba saaxiibayaal waxaynu soo gaarnay gabagabada iyo gunaanudka mawduuceena maanta. waxaan rajaynayaa in muuqaalka aad la dhacday lana wadaagi doonto ugu yaraan mid ka mid a saaxiibada si isagana uu daawado. mahadsanid.